Somaliland ay hadda wiilashiina yaryaraay oo dugsiyada laga soo guray aad u soo ururiseen inaad dagaal gelisaan qalasyadu waa diyaar dagaalku waa 2 saac ama waa 3 saac baa guusha la kala helaa waa one day waa maalin yey maalinta le mustaqbalino soo howan wax badan baan xishoonay wax badan baan dul qaadanay wax badan baan waxaan niriyaan la isku xad gudbin laakiin wuxuu rabaa in la soo taabto madaxtooyada xun uu galgalo hortaan isaga la carlay ogna ciyaalkiisa kulli dibad u diray bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhamaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool dunida daafaheeda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intay garanaysa oo muuqayga iyo codkayga garanaysaana waxaan leeyahay soo dhawaada intii aan garanayna ninkan waxa la yiraahdaa Suldaan Maxamuud Suldaan Axmed Suldaan Xaqudir xaaladu halkaas ay fadhidaa ilaahay noo heeliyo ilaahay diinta iyo xaqayna faasiyo ummadan iyo dadkan isleenaya oo meel walba qoriga la isku qaatana ilaahay Soomaali qulubteeda ay soo jeediyo Soomaali waa loo soo socdaa iyadana way isku maqan tahay marka waa aad bay u dhibadan tahay waxaan rabaa inaan ka hadlo Muuse wiilkii Muuse la oran jiray hawshiisa Muuse fariisa laga waayay war Muuse nabadgelyo doon war Muuse shacabka kan hawareerin war Muuse dalakan dal nimankan dalkooda bay haystaan amaan gali waa laga leeyahay Muuse waxaan maqlaayay ayaamahan Itoobiya iyo meelo badan iyo wax soo marmareen oo xogaaba soo urursaday markii hore waxa ay ahayd qaniibo iyo cimro marka tiriiba kan daba waxa noqonaysaa xaj wal xajiya وحديق إسلام لو حجيه معها لكن موسى نو كلفة أنا نراره موسى وحن ليه موسى وحي جوج عد يلا سعانا كارع وصول كارع ودرين سنتاي أنا جماعة أنا مران تاي أنا نوالن تاي وعقود بينين أنا ربط السومال لأن أنا وحبا كارين وكلا جرم واي موسى وحن ليه haddii aad dad ku qabta leedahay adigu ma meer qabtee oo ama uqaal ama culimo ama aqoonyahan ay jiraan oo wax ka dhageysan kardho waxaan leeyahay hore Muuse qabta Somaliland ay hadda wiilashiina yaryaraay oo dugsiyada laga soo guray aad u soo ururiseen inaad dagaal gelisaan qalasyadu waa diyaar qalasyadu oo sidii waliba ka casriyaysan waa u diyaar waxaan leeyahay Muuse waxa aawado wax Soomaali heshiis ku noqon doonto iyo wax Soomaali isku dugsanayso iyo wax daris ku noqonayso midnama dalkaaga baa joogta niman gurigoodii iyo xaafadoodii degan oo maalintii halka laga baacsaday isimadii yiraahdeen gacan nabadgeliyo maandheeno halkiina ku ekaada wax dhaafina oo aan cidi tarkifal iyo dabdarramida kugu sameyn baa wali waxaad wadaa doon lama arag iyo laba maqal baa ka dhacay ama sac mara ku xir ama dooro mara ku soo xir waxa doorooyinka iyo sac iyo marada ugu xireysana waa dareensanahay hubkii baa qarinaysa waa qaniibo waa qaadanayna wiilasha qaadan jiray baa haddana qaadanaya Muuse waxaan leeyahay Muuse waajibka aad leedahay baad helaysaa Somaliland inta wax garadka waxaan leeyahay arintayda waa qodobaynaya qodob waa Muuse inta Somaliland dadka miyirka qaba oo aqoonyahanka leh oo culimada leh oo wax garadka leh oo aan dagaalka rabin oo aan dhibta rabin waxaan leeyahay haday idinka dhabtahay inaydinaan diririn oo Muuse la socon haday niyad idinka tahay shucuurteena muujiyo hadla mudaharada qofku wuxuu doonay waa ka hadla annaga waxa noo muuqata ina isku xirantiin sababtoo ah waxa la helaa qofku haduu khaldan yahay waxa la yirgaa wax kaga qabo hadaa wax kaga qabo wax kaga qabo hadaa kaga qabo ka haajir nimayo waana isku duubantiin si suwarmadi wax roona isu sheegi meeshan annagu xaaladiina ma fahmin taasan leh Muuse waxa uu soo wadaa waa qaniibo Muuse hadduu dagaal qaado
oo hadda waa u xirxiran oo waa ognahay inta aag u diyaar garoobay oo wax ku ururinayana waa la soconaa waxa ma kala qarsoona dadkan dad iska waraya way xeerada salkeeda la iska waraya marka Muuse dagaal buu u xirxirtay laakiin ballan waxaan qaadaynaa inay Hargeysa ka cabaadaan wax badan baan xishoonay wax badan baan dul qaadanay wax badan baan waxaan niriyaan la isku xadgudbin laakiin wuxuu rabaa in la soo taabto madaxtooyada xun uu galgalo hortaan isaga la carlay ogna ciyaalkiisa kulli dibad u diray waxa burburaya iyo waxa baaba'aya wuxuu rabaa inuu dalkiisa ka qaxo saamacad xumo iyo baaba iyo cadaawad dadka uu dhigo kaga tago aroy tashada waa tashaweedan Soomaa waajibkiina helisan Soomaaliland iyo Muuse intaasan leh qalasyada wiilasha saraakiisha ciidamada askarta odayaasha magaalada iyo laasacaano iyo meelaha jooga galab furinta tuuta la xirto farda la galo la diyaar garo kutation dagaalku waa maalin adeer maalin la kala guuleysto way Muuse wuxuu rabaa inuu hal maalin intuu is adkeeyo yiraahdo waa guuleystay waad ogeydeen 3 saac baa la jiiray ilaa gooja cade ilaa baashi inta la maray 3 saac ma ay gaarin waxba iga daadanaya iyo wixii ka dhacay waa la ogaa dagaalku waa 2 saac ama waa 3 saac baa guusha la kala helaa waa one day waa maalin yey maalinta le mustaaqbal inoo soo howan qalasyada iyo laasacaano iyo raga heeganka iyo saraakiisha waxa la be careful diyaar garooba wiilashatan daarood waxaan leeyahay isaaq daarood ahaan la isu raacay maaye hartiga waxaan leeyahay adeer waxba haba iska dhiginina waxba arintan Muuse wada hadhayelsanina Muuse sanad hadda dagaalkaasi waa ahaa buhub iyo ciidan iyo rag urursanay Ethiopia oo tiri waabo badna taagay meel xeebana taagay iyo cadow badan oo aad leedahay baa taa kuleynaya jabkaaga la rabaa in lagu jabiyaa la rabaa SSC hartiyo de hadaad ku daawataan oo aad Nairobi iyo iska baaxmustiraysan oo guriyo dhaadheer ka dhistaan hadda Nairobi wiilashan dabaqyada dhisaayo lacagta gomaarka ku haya inta Nairobi lagu yimaado laga qaadaya wallahi waadan haysaneyn lacagta la saacano oo nabada ku haysan kadhaa ilaaha baan ugu dhaartay inadan haysaneyn wiilasha burburan oo amoodeen ka yeeleeyeen oo la baxay qasamayn karaan waa nin raga ninkana waa jahaadaya nin jahaadaya oo soo diyaar garoobay xoogaa baantaan ku halaynayna oo daraawiish kaliya aan ku halaynayna oo loo tagi maayo af Soomaaliya aan garan karno ma wiilkan la yiraahdo dani waxaan leeyahay dani waa lagu doortay madaxweyne noqotay Puntland baa madaxweyne ka tahay waxaad u socoto hadda waa federaal sida u soo noqon lahayd oo adigoo la sacaano waxaad hayso geeya balash lama rabo bareer caday warkaaga adeer wiilasha beerka waa weyn oo caana boora la siinayo kii furinta gay waxba la kala qarsan maayo la isu bareeraya waxa magaca ku yeelatay oo kursiga ku soo noqotay waa SSC idina adeer kuma soo dhaweyseen dana intaasaan leeyahay artiga waxaan leeyahay kaca oo fadhiga ka kaca oo hurdada ka kaca waa hurdaan habacsanaan baa jidha habacsanaanta ka kaca arinta markaan inta ku soo gabagabeeyo waxaan rabaa arrimo fool xun oo Soomaaliya ka dhacaya oo aan nina u jeedin oo madaxweyne ka hadlayn oo ra'iisul wasaare ka hadlayn oo wasiirka amniga ka hadlayn oo nina u oranayn war abgaal baa wuxuu iska laayay 30 ilaa 40 iska laayay abgaal soo dad islaam ma soo dad Soomaaliyeed ma annaga waana dhibaysaa dhaqan baanahay wada dhaqameed baanahay Suudaan Soomaaliyeed baanahay nin xabadi gaadho ma ogola
كبر بان لقادنا سيدا هذا إسي باشي سومالي لانو كبرتي دادك الصومالي دا وولال مربنا إني بكدعو وحن لأنها تاب قال هلا حليو oo ay isleynayaan oo malaayana isku leynayaan isimadu ha kaceen dhaqanku ha kaco waxa laga bedelo waxaan ku xijinayaa wiilashan la yiraahdo darbi daarood magaca waa la idinka bedelayaa darbi daarood la yiraahdo dumar baa qoryo u dhiibteen jamhad dumar ah sameeyeen reer dhan oo jamhad dumar ah sameeyay oo naaga dadka leynayaan oo duurtuunsan yihiin wax loo dul qaadan karo iyo wax gobannimo ah iyo wax Soomaali dhaqan oo ama meel baa ka dhacday laqid maradeen ka dhacday qaata marada gabdhaha gurigooda ku celiyay ka ururiyo qoryaha oo gurigooda geeyay nin miskiina oo madaxa laga jiro oo meel cidla jooga oo indhaha laga saaray oo dumar dilaayo wallahi waa mahadho waa wax dufnimo ah waa wax la qaadan karin dhaqanku ha kaco isimadu ha kaceen wax garadku ha kaco waxa laga qabto waxa ay haray qorada Saleebaan oo bariyahan waa la xamanayay oo nin gabadhiisa gubay u doodayay oo maxkamadu khalad bay nagu yeeshay maxkamadu saasayna sameeyay waxaana neeyo kor isaga qaada wiilka 12 jirka oo abtiyaasha u tihiin oo gabadheena dhashay oo magaaladiina jooga oo goyseen wallahi iyo billahi badina dad gabadhiga guursaneen oo dad la digeen oo daris la noqoneen inta sida tiin isqabta mooriyaanka qoriga sita oo aan meelaha looga baahan qoriga la tageen oo guriga noqodka intuu guriga ku soo noqdo ciyaalka bireynaya oo dadkii shacabka ceelashi ka cabi waayeen oo dariskii iyo ka adag dariska adag awr guri baa la yiraahdaa ninkaas oo kale waxba lagu ma qaybsado sirta waa laga qarsadaa waxa noocaas iska saara waxa noocaas Saleebaan oo iska saara iska safaye Soomaali waxaan leeyahay iimaanka Allah ku soo celiyo ra'iisul wasaare Xamse waxaan leeyahay dhowr jeer baa ninka la hadlay wiilka dheer oo waxba oran maayo ninka markii uu ka hadlayay Falastiin iyo halka ka hadlay nin aqoonyahana oo caaqib leh oo qiimo leh u muuqanay laakiin waxa moodaa xogaa inuu gaab isku jiro war Xamso sidii nin u soco kursiga reer baa ugu fadhida reer baa u joogta 4.5 baa ku joogta waa lagu xamanaya annaga kaliya ku xaman mayne qoyskii ka soo jeeday baa waxay leeyeen war Xamse naf ma leh war Xamse waxba ka siiya Allah ku soo hanuuniyo xaq Allah ku fahansiyo rasuul sallallahu inta u dhaafmay waxaan xoogaa ku darayaa Xasan oo niman baa isu geeysi nimankaasi waa maamul goboleedo meel baa ku shiris Puntland waa ka maqan tahay Somaliland waa maqan tahay SSC waa maqan tahay SSC waa kula joogtay laakiin ma aqaan xaaladdu say noqontay qaabka loo dhaqantay ma aqaan garan meen waxaan marka rabaa Xasan oo sida dawlad lagu maamulo dawladana kuma shaqeyso dastuur baa tuurta ku sidata ummadda Ilaahay oo dhan baa ku karaasatay dadkii oo dhan baa meel u socod ka yaaban manin waalan baa tahay manin meeyr qabaa tahay see tahay hortaadu dadkii shacabka aad u hayd baa isleenay caruuraha duurka lagu bireynaya naaga indha ka saaraya dad adaa madaxweyne waa abgal baa isku leenaya shabeellada hoose oo konton qof iska dilay madaxtooyada fadhida ayaad fadhida madaxtooyada xilka dhig oo ka tag kun jeer baan ku yeeray xilka dhig Xasan oo dhig xilka madaxweyne maahide masiibo dadka loo soo diray baa tahay waa aqal waa Suldaan Maxamuud Suldaan Axmed Suldaan Xaqudir